waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay dhismaha runwayga cusub ay yeelan doonto gegida diyaaraduhu ay ka aadaan ee magaalada Burco. Dhismaha bilowga runwaygan cusub ay yeelan doono madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco oo isagu waqti badan ahaa mid uu ka muuqday dayacaad u badani kaasoo waqti aad u badan aan waxba laga qabanin. waxaana cagaf-cagafyada dawladda hoose degmada Burco iyo iskarogooyin aad u tiro badani ay maanta si toos ah u bilaabeen dhismaha runwaygan cusub kaasoo kaalin weyn ka qaadan kara hawlaha shaqo ee ka socda gudaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco. gudoomiyaha guddida dibudhiska ee madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco Sheekh Cali Mawlid, injineer Faarax Xuseen iyo maamulaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo ka hadlay runwaygan cusub ee yeelan doono gegida diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa iyagu baaq u soo jeediyay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer inay taageero la barbar istaagaan guddida dibudhiska ee madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco. waxayna mas'uuliyiintani xuseen inuu madaarkan uu yahay mid waxtar ballaaran u leh guud ahaanba bulshaweynta ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland. waxaa lagama maarmaan ah lacagta hawshu ay ku socotay ku dhaqdhaqaaqaysaa waxa weeye waa lacagta maaragtay maxay ahayd dadka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan reer Togdheer waa lacagtii ay maaragtay maxay ay bixiyeen haddana si hawshaasi ay u sii dhammaystiranto waxaa laga sugayaa inay maaragtay maxay tahay hawsha runtii marka loo hadlana badankeedii waa inoo hadhay hadduun baynu maaragtay maxay tahay cagta saarnay madaarka hawshiisii way socotaa wax badan baa xaydaankiisii ka hadhay in badanna waa la qabtay welina looma soo jeesan oo si wanaagsan looguma soo jeesan sidii madaarka dib loogu dhisi lahaa si uu u noqdo madaarada kale caalamiga la mida taasi waxay u baahan tahay awood dhaqaale waxay u baahan tahay aqoon badan waxay u baahan tahay inaynu haddii reer Soomaaliland nahay ama reer Togdheer iyo wixii ka sii baryeeynahay inaynu u hurro jeebkeena. waxa maanta la bilaabay 1800 mitir oo carrakaabo boxing lagu sameeyo hadhoona jay lagu fidisayo. ugu dambeyntii runwaygan cusub ay yeelan doonto gegida diyaaradaha ee magaalada Burco oo isagu dhan 3 kiiloomitir. Maxamed Ibrahim Xasan, Maxamed British Television caalamiga Royal Burco.